السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشاد الصوماليات ميرو البوا جوجتان كسو دوادا channelka عبد القادر كورنتو tutorial sida aan hore idinka balan qaadayba channelkan waxaan ugu talagalay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay wax badan ka faa'iideystaan isla markaana aan halkan idinkaga soo gudbiyo casharo aan isleeyahay dad badan waa ay ka faa'iideysan doonaan qaar kamid ah asxaabta ayaa waxay iga soo codsadeen inaan bal uga faa'iideeyo sidee aan ku baran karnaa software editing fudud isla markaana aan ku edit gareyn karno muuqaalada iyadoo muxuu ahaay sheeg aan haysano computer awoodooda ay yar tahay sida wada ogsoonaayba After Effects-ga muxuu Adobe Premiere-ka iyo software-ada waaweyn waxay u baahan yihiin inay helaan computer process-kiisa uu ka weyn yahay Core i7 RAM-kiisa uu ka weyn yahay 8GB muxuu ahaay sheeg wax qaadkiisana uu aad u badan yahay si uu u fududeeyo renderka wax loo yaqaan ama processorka wax loo yaqaan laakiin se Core i5 iyo computerada kale muxuu ahaay sheeg inta badan marka aad ku sameynayso software-ada hadda aan soo sheegnay waqti dheer ay qaadanayaan saacado dheer ay qaadanayaan marka waxay iga soo codsadeen ayadoo ay jirto baahidaas iyo duruuftaas dhanka computerka ah haddana sidee anigoonan editing aanan garanaynin wax badan aanan ka ogeyn aan si fudud ugu baran karaa software editing marka maanta waxaan idin wadaa software editing si fudud dhalinyarada ay uga faa'iideysan karaan waliba saacad gudahooda qofka aanan hore editing u ahayn oo markii ugu horeysay video gacantiisa ku edit gareysan karo kaliya uu u baahan yahay inuu wax yar fahmo qiyaanooyinka qaar iyo meelaha la tagay iyo sida muxuu ahaay sheeg wax looga faa'iideysan karo wax kale ma ahan inaad hore u maqasheen qaarkiin waa suurtagal waxaan la hadlayana waa dadka cusub youtuberada cusub ee u baahan in muxuu ahaay sheeg ay wax edit gareeyaan sababtoo ah haddaad tahay new creator YouTube creator waxaad u baahan tahay inaad muxuu ahaay video soo duubto videoga soo duubtay muxuu ahaay sheeg sidee u edit gareynaysaa marka waxaan u baahanahay inaad isku filnaansho gaartaan oo videoga aad soo duubateen adinka ay edit gareysataan qaar kamid ah youtuberada waxay isticmaalaan mobiladooda muxuu ahaay sheeg Ken Misty iyo muxuu ahaa software mobilada loogu talagalay ay isticmaalaan qaarkood waxay soo geliyaan youtube-da markaa fiirisid ayagoo leh muxuu ahaay sheeg calaamadii software-ka ay wax ku edit gareeyeen ayagoon kara gareysneen oo aan la jibinin taasna runtii aad baa looga qurux badan yahay haddaad muxuu ahaay sheeg fursad u heli kartid software jabsan oo kara gareysan inaad kaas ku samaysatid ayaa aad u qurux badan marka maanta waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan uga faa'iideeyo Filmora 9 software-ka la yiraahdo Filmora 9 horey waxaa jiri jiray muxuu ahaay sheeg Filmora 8ka xoogaa waxaad moodaa quality aan inuusan aad u qurux badnayn laakiin asagii la soo casriyeeyay oo color correcting-kii muxuu ahaay sheeg optionno aad loo soo fududeeyay wax qurux badan aad ka heli kartid ayaan rabaa maanta inaan idinkaga faa'iideeyo sida aad la socotaan barbardhig inaan sameeyo waan jeclaan lahaa laakiin waxaan diidanahay inaan waqti badan idinkaga lumiyo laakiin hal point oo kaliya ugu muhiimsan hadda Filmora 8 iyo kuwii kale ka sii horeeyay waxay lahaayeen laba qaanadood oo kaliya qaanad kore iyo qaanad sawirka aad dhigan karto ama video aad dhigan karto labadaas qaanadood laakiin Filmora 9 aan rabo inaan maanta dhalinyarada uga faa'iideeyo waa uu ka duwan yahay oo waxa uu leeyahay muxuu ahaay sheeg qaanado badan oo aad ku darsan karto isagaas ayaan jeclahay inaan wax badan idin sharxo idinkagana faa'iideeyo haddii Allah awood leh uu qadaro marka u diyaar garooba casharkii maanta ee Filmora 9 asxaabay mar alla marka aad rabtid inaad soo kicisid Filmoraha muxuu ahaay sheeg halkan waa computerkii lagu xamaalanayay oo ilmaha bariiskooda lagu soo dhicinayay software aad u far badan ayaa ku jiro Filmora 9 marka u baahan tahay muuqaalkiisa sawirka muxuu ahaay sheeg markuu desktop-kaaga yaalo sidan ayuu soo bixi doonaa haddii Allah awood leh uu qadaro inta uu ka soo kacayo waxaan rabaa bal inaan xogaa idin fahamsiiyo Filmora 9ka asagoo karaaga la heli karaa asxaabta qaar waa ay soo codsan karaan haddii Nairobi ay joogaan software-ka waa aan siin karaa setup-kiisa computeradooda qaarkood haddii waqtigu uu saamaxayo waan ugu shubi karaa ama meel walba ayaad ka heli kartaan amaba asagoo online ayaan idin tusi karaa sida aad ku heli kartaan oo aan idinkaga faa'iideyn doono software-kana wax badan
ayaa muxuu ahaa ii sheeg dhalinyaradu ay ka faa'iidi doonaan. qaar ka mid ah asxaabta oo Nairobi joogtana waayii ugu dambeeyay waxa ay soo bandhigaan muuqaal aad u qurux badan. wax kale kumaysan sameynin, waxay ku sameeyeen waa Filimora 9 oo aniga aan baray oo ay wax badan ka faa'iideysteen. maasha Allah, hadda maanta isku filnaansho ayay gaareen. editinaan nahay ayay ku leeyihiin, inkastoo bahalkan waa badweyn. asxaabay Filimora 9 mar alaal markuu soo kacayo qaabkan aa ujeedaan oo muuqaalka sida idinkaga muuqanayo ayuu usoo kacaya. video editing simplified ayaa lagu dhahay, waa la soo fududeeyaa laga wadaa. mar alaal markii uu soo kaco asxaabay oo uu desktopka kaaga soo muuqanayo softwareki halkan ayuu ku keenaya. mar alaal markuu halkan ku keeno halkan project library ayaa la yiraahdaa. project library marka uu softwarekaaga cusub yahay oo computerkaaga aysan wax hore aadan ugu edit gareynin Filimoraha, halkan waxaa ku arkaysaa videoyo iyo muuqaaladii aad edit gareyso oo ka shaqeysay. sida u jeedaan channelka xiisaha wararka muuqaaladii aan u sameeynay ayaa halkan ka buuxo. waxa waaye project aad save gareysatay oo meesha kugu jiro dhamaantooda. halkan open project muxuu ahaa ii sheeg ayaa ku qoran. open project micnaheedu waxa waaye ifur project aan hore u sameystay oo aad raadinaysid meesha uu yaalo. tusaale ahaan halkan ayaa waxaa kaaga buuxo wax aad u fara badan. wax hore ayaa rabtaa ama wax cusub oo aad meel kale ka keensatay oo ama flash ama hard disk aad ku wadatid ayaa rabtaa inaad kusoo fududatid. kaasoo kalena halkan kaagama soo muuqanayo. marka open project ayaa leedahay. halkan waxaa kugu qoran new project, waa halka aad rabtid video walba oo cusub inaad edit gareysid. meesha aad keensanaysid waa new project-ga waay. waxaa kaloo iyana muhiim ah meeshan oo select project aspect ratio la yiraahdo. waxaa waaye dooro qaabka frame-ka aad rabtid in videogaaga uu noqdo. waxaa ugu horeeya waxaa waaye 16:9. 16:9 kana ujeedaan waxaa waaye qaabka hadda YouTube-yada ay isticmaalaan oo frame-ka weyn, frame size-ka ah. sidoo kale waxaa jiro 4.3 oo ah frame ka yar 16:9 ko ka yar yahay. xoogaa waxaa moodaa videoga lagu sameeyay 4.3 marka video kale oo 16:9 aad ku edit gareynaysid frame-ku waa ka yar yahay. wuxuu u baahan yahay inaad resolution-ka aad dib u bedeshid. sidoo kale waxa uu leeyahay portrait-kan uu leeyahay muxuu portrait-ka tusaale ahaan videoyada YouTube-ka waxaa loo isticmaalaa horizontal oo ah kan balaca ah. mobilkaaga markaa isticmaalaysid midka saan loo duubayo horizontal, midka sansaan dhudhubka loo duubayo waxaa loo yaqaanaa vertical. inta badan YouTube-ku wuxuu yani ishaq support gareeyaa waayii ugu dambeeyay oo waliba shuruuc la soo saaray aan u jeeday in micnaha ishaq loo baahan yahay midka balaca loo duubayo mobilka. marka qaabab badan oo leeyahay 21.9 uu leeyahay oo cinema ah. muxuu ahaa Instagram uu leeyahay. qaababkan oo dhan micnaha waa qaabka aad rabtid videoga inuu ku soo baxo oo uu ku soo muuqanayo. hadda anaga marabna project noo save gareysan oo waxaan rabnaa inaan muxuu ahaa ii sheeg video cusub, project cusub inaan abuurano. marka waxaa ku dhufanaysaa new project yaa ku dhufanaysaa. mar alaala markii aad new project ku dhufato wuxuu halkan kuu soo saaray calaamadan oo ah your computer seems to be offline causing a connection error, please check your connection and try again. micnaha waa marka internet uusan kugu xirnayn. hadda internetka aniga iska xiray muxuu ahaa ii sheeg, laakiin waa mar alaala marka aad ku shubaysid softwarekan wuxuu u baahan yahay inaad horta qadka iska xirtid computerkaaga marka ugu horeysa aad ku shubaysid. qaabka muxuu ahaa ii sheeg loo active gareeyana hadda ilaa ma baranayno sida loogu shubay waxaas oo qaabka editing-ka baranayna. computerka already waa uu ku jiraa. markaas aad u baahan tahay inaad offline aad ku shaqeysatid, laakiin markan uu kugu shiro computerka uu kugu shaqeynayo waa ku isticmaali kartaa, waxba problem ma lahan. marka halkan iska close gareynayna waxba ugama baahnin. mar alaal markuu soo kaco sidaan ayuu kugu soo kacayaa sida muuqaalka aad uga jeedaan. halkan ugu horeyso waxaa ku qoran import media files here. halkan kusoo keenso waaye videoyada iyo wax walbo aad rabtid inaad editing ku samaysid. import media files here, halkan keenso waaye. marka sidee videoga loo keensadaa? qaabab kala duwan ilaa 3 qaabab ayaa jiro. qaabka koowaad waxaa waaye falaartan aad ujeedaan oo hoos ujeeda ayaa ku dhufanaysaa, dhaca siinaysaa. waxaa raadinaysaa videoga meesha uu ku yeelay. qaabkaas waa ku keensan kartaa. waxaa kaloo iyana jirto qaab kale oo labaad oo ah file menu. waa tagaysaa halka ugu sareysa computerka file menu. marka meeshan
qayb walbaba shaqay qaabilsanta laakiin hadda waxaan ka rabno waxaa waaye new project ma rabno new projectiga waa already waa soo dalbanay marka waxaan rabnaa hadda muhiimadda halkan aan u imaano waxay tahay inaan video soo qaadno soo ma ahayn video marka aan soo qaadeen optionka labaad waxaa waa import media file jagaa siinaysaa isna wuxuu ku dirayaa meesha fileka uu yaalay oo aad rabtay inaad editing ku samaysid optionkaas waa labo asxaabay optionka kale oo noo banaana wuxuu yahay waxaad tegaysaa hadba meesha aad rabtay oo video ku yiilay waa kan hadda filekaan aan tegaynaa kadib waxaan rabnaa videogan inaan soo qaadano videogan aan soo qaadanayna halkan ayuu noo yaalaa tusaale ahaan labadan file marka waxaad samaynaysaa wax loo yaqaano drag and drop soo jiid kadibna dhigo amaba ku tuur meeshaan dhig drag waa soo jiiditaan hadda ujeedaan waa soo jiidaynaa dragina sameynaynaa halkan marka aan joogno ayaan dropping sameynaynaa marka falaarta hadda idin muuqato laba file aan wadnaa calaamadan balaaska ah oo videoga haddana ii sheeg idinkaga sii muuqanayso waxaa waaye copy inaa wadid sii daawa marka waad sii daynaysaa mar allaala markaad sii daysid calaamadan ayuu ku weydiin karaa for faster editing performance you can work with the similar proxy copy when exporting projects will render with your original full quality media. You can also reset this performance setting later in preferences. marka micnaheedu waxa waaye videogan waxaa laga yaabaa videoyo kala duwan oo meelo kala duwan iyo kaamirooyin iyo muxuu ahaay sheeg resolution kala duwan in lagu duubay ma isugu ka ekaysiyaa videoyadaada oo dhan micnaha mise waxaad rabtaa in muxuu ahaay sheeg waa wax hal kaamira ku duubatay marka hadda anaga waxba ugama baahnin no aan iska leenahay videogi waa keensatay halkan waa meeshii lagu shaqeynaya saa idin dhahay micnaha waxaan rabaa qaabka haddaan hadda waxa dhan aan idin wada sharxo mid walba iyo shaqada uu qabanayo iyo timeline iyo wixii haddaan sharaxaadii aan hormarsiiyo waxaa laga yaabaa asxaabta qaar inay fahmi waayaan halkan markii aad soo dhigato halkan waa sharaxna waa dhameynay halkan ay ujeedaan oo falaarta idinkaga muuqanayso waxaa loo yaqaanaa timeline ayaa loo yaqaanaa waa halka video ha dhihin cod ha dhihin sawir ha dhihin wax walba oo aad u baahan tahay qoraal ha dhihin meesha aad keeni doontid oo aad shaqada ku qaban doontid video editingka muhiimadiisa halkan ayaan kasii gelaynaa oo meesha aad keensan doontid okay marka inta aanan videogi soo dhiganin halkan aan waxa idinka fahamsiiyo meeshan calaamadan ubuucda ah waxaa loo yaqaanaa toggle track output loo yaqaanaa waa meesha laga xiro videoga aragtidiisa muuqaalka aragtidiisa meesha laga xiro waa halkan marka waa meesha videoga la soo dhigayo halkan qufulkan muxuu ahaay sheeg toggle track log loo yaqaanaa waa meesha laga xiro videogaas oo aan rabin inuu dhaqaaqa iyo inuu micnaha ii sheeg soo sigtay wax la midka aad rabin calaamadan muxuu ahaay sheeg waa calaamada muujinayso qaanadaas in loogu talagalay video in loogu talagalay calaamad qaanadan kale ka hooseyso waxaa loogu talagalay audio sida meeshan ay idinkaga muuqanayso calaamadan muxuu ahaay sheeg meesha ku aragtaan waxay muujinaysaa calaamada music waa sida u jeedaanba waxay muujinaysaa meeshaas in music loogu talagalay sidoo kale qofulkan way ka siman yihiin oo toggle track loga codka dhana xiraysaa si uusan u soo sikanin waa marka aad rabtid video ka koreeyo inaa editing iyo wax ku sameeyso wax ka jarjartid sidoo kale codka halkan ayaa laga xiraayo waxa loo yaqaanaa toggle track output marka hore waxaan u soo aragnay muuqaalka meesha laga xiraayo haddana waa meesha codka laga xiraayo marka qoraal ahaan waxba farqi uma dhaxeeyo laakiin sawirka ay ku kala duwan yihiin midna waa il midna waa meeshii audio codka calaamadii muxuu ahaay sheeg music muujinaysay marka hadda waxaan rabnaa video aan soo dhiganaynaa video waxa halkee la dhigaa ay kugu sheegay video waxa la dhigayaa meeshan dheer oo calaamadan videoga muujinayso noo soo qaad marka qaabkee loo soo qaadaa marka inaad soo qaadato markaa rabtid laba option ay idin tusaaya waa maray waxaa sameynaysaa drag and drop waxa loo yaqaano waa sida hadda aan video ku soo qaadnay dragina sameynayna waa soo jiideynaa droppingna waa meesha aad rabtay dhiganaysaa marka waa sii deynaynaa hadda waa kaasa videogi wuu noo imaaday meeshii aan rabnay meesha muuqaalka inta aan marka inta waa usoo laaban doonaa halkan aan falaartii idinkugu aadiyey waa shaashadii ama screenkii laga arkayay shaqo walba oo aan meeshan ku haysid oo editing ha dhihin wax walba ha dhihin meeshii aad ku arkaysay waayo meeshan marka tusaale ahaan marka hadda waxaan rabnaa videogan
qaabkii labaad aa usoo qaadan lahayd inaa idin tusiyo meeshan falaarta ujeedaan meeshan calaamadan muxuu ahay sheeg buluga waxaa ku qoran calaamad istilaab ama balaas ah balaaskaas check siinaysaa fudayd check hadaa siisa hadda fiiri ja already videogi uu ku keenay laakiin si cilada farqiga u dhexeeya waxaa waaye mar allaala marka aad dhag siinaysid qaanad cusub oo kuu furaya waxyaabaha uga duwan softwarekan ay qayb ka tahay calaamad qaanad cusub inuu noo furo ayuu sameeyey laakiin anaga hadda qaanad cusub inuu noo furo muxuu ahay sheeg uma baahnin marka waxaan sameynaynaa videogii aan soo dhiganaynaa videogii waa soo dhiganay waa keensanay meesha codkan waa idin sheegay meesha videogan waa idin tusiyey waxaa kaloo jiro shaqada softwarekan waxyaabaha uu ku fududay waxaa kamid ah manqaski iyo deletekii iyo wixii oo dhan meel fududa lagu soo dhigay halkan waxaa yaala manqaska manqaska waxaa lagu yiri split oo ah ku dhufa meeshan oo ii kala jar waa micnaheeda split ama waxaa lagu yiri control plus b splitka meeshan aan ka helaysaa oo meeshuu ku saaran waa kana saa ujeedaanba laakiinse control computerkaaga keyboardkiisa tagaysaa control aa qabanaysaa iyo p da waa b oo Soomaaliya b for bookna waa dhinaca kale loo yaqaanaa qaar kamid ah asxaabta wadamada qaar joogaana waxay ku leeyihiin c for calimiya muxuu ahay sheeg na for nimca miya fa for faaduma miya marka saa ku fahmaysaan idin sheegaa muxuu ahay sheeg bacdan waa bacdi for baabuurka tii aad waay marka see lagu jaraya videoga lagu kala jaraya split ayaa taabanaysaa meesha maqaska amaba control plus p ayaa taabanaysaa labadaas option bay ku banaan yihiin okay hadda marka calaamada oo ii sheeg splitka ah dim waay dim waxaa mataqaanaa active ma ahan waa micnaheeda waxba shaqaa ma qabanayso sababtu mataqaanin wax marka ay shaqo qabanayaan waa in wixii shaqada laga qabanayo ay diyaar ku yihiin maxaysan hadda diyaar u ahayn sababta video waa soo dhignay kaliya meel aan jarnaba maba aanan geyninba marka waa inaan meel aan jarna geynaa tusaalahaan computerka ayaa codka xoogaa ka yar xiran yahay hadeertaana u furay marka hadda fiiriya marka calaamadii active waay marka meeshaan hadda tusaala intaan rabna hadda inaan jarno click ayaan ku leenahay dhac markaan siino jaa clip yaroo noo jaray clipkeeni dheeraana waa kana marka meeshii aad mar walba meesha jaraysid software walba isku mid meesha jaraysid waa inuu haylaad waxa loo yaqaan ku saaran yahay hadda qaybtan ayaan haylaad saareynaa si ay u jeedaan waxa fuushay calaamad oo cagaar ah oo muujinaysa in intan ay haylaad saaran tahay su-aashiis weydiinta mudana waxay tahay waa kala jarnay clipkan waxaan rabnaa inaan iska tirno iska cunno halkee laga jarayaa very easy waaye Filmora 9ka calaamadan ay u jeedaan oo recycle binka muujinayso waxaa ku qoran delete okay delete kan halkan ku haysataa meel kale oo laga tiro ma jirtaa or delete lagu dhahay calaamada qoyska da aragtid or ay u taagan tahay beena qoysinka da aragtid ama waa micnaheeda okay delete or delete marka lagu dhahay delete halkan ka tiraysaa software-ka ka tiri kartaa ama keyboard-kaaga meesha ay delete ku qoran tahay ayaa delete ka leedahay hadda tusaale ahaan delete aan leenahay ja already wuu tirmay waxaa noo soo baxda marka waxaa banaan meeshii aan wax ka tirnay waxay noqonaysaa meel mugdi ah hadda tusaale ahaan markaan qaybtan bilowga tagno mugdi waa wax ku dhex jira ma laha ilaa meeshaas laga imaanayo okay spacekaasna waxaan u baahannahay inaan tirno meel walba aad tiraysid marka waa inaad jag calaamada meesha wax laga tiraayo computerkan uu fududiyaa marka idin dhaas sababtoo ku fududiyaa hadda idin la wadaagaya meesha empty-ga ah jaga siinaysa software-ada kale maxay u baahnaayeen inaad soo jiidid oo aad keentid hore inaad keentid laakiin kan meesha space-ka jaga siinaysa kadib computerkaaga delete ka leedahay ama halkan delete ka leedahay hadda delete aan leenahay ja already wuu sikanaya videogi dhac horay bilowgii noo tagay tusaale kale gaaban hadda waxaan rabnaa intaan ilaa intaan inaan iska cunno dhaxda si ay u aragtaan qaabka uu micnaa isugu soo dhaweynayo hadda meeshaan aad u jeedaan muuqaalkeeda kaga muuqanayo banaan waa meel faaruq ah haddaan hadda dhag siino waxaa fuushay calaamadii ay idin sheegayay framekii cagaarnaa oo muujinaya in waxaas ay heelaad saaran yihiin hadda jagle haddaan siino computerka hadda jag ka siina fiiriya dhacaan siina ja already wuu isku imaanaya control z waxaa waa ii soo celi oo sidiis igu soo celi hadda jag haddaan siino hadda computerka aan ka tirana dhahnana jac waaba kaasaaba micnaha meeshii uu ka saaray
optionka kale oo softwareda kale ay leeyihiin isla optionkaasa kuu banaan oo ah inaad soo jiidid sidaa ujeedidba meeshaan inta aan jiideyno calaamad muxuu ahaa falaarta hoosteeda balaasa yani isheg aa ku dhegan balaaskaas micnaheedu waxaa waaye wuu jiidayaa hadda halkaan u wada soconaa waa geeni okay meesha hadda oo dhaxda inaan bixino aan rabnay waxaa kaloo dhici karto in waxaaga ay ku diyaarsan yihiin oo meesha aad ka jiraysid videoga aad garanaysid markaa videoga meesha aad ka jiraysid aad garanaysid waxaa sameynaysaa waa jiidaysaa sidaa ujeedaanba hadda duration aa noo soo baxay durationka wuxuu ka bilaabay 0018 uu ka bilaabay marka hadaaye aan soo jiidaynina balaasu ahaa hadda laakiin meesha hoose waxaa kugu qoran reduce meesha uu ka bilaabanayo ilaa meesha aad geenaysid reduce waa kaasa wuxuu ku xisaabayaa inta minute ee gadaal aa u laabatay meesha aragtaa geysatay fudeed very easy dhaca siinaysaa meesha emptyga maxaa isha delete ka leedahay sidaas isugu ka imaanaya run ahaantii softwarekan waxyaabaha uu ku fudud yahay oo inta badan uu uga duwan yahay softwareda kale oo aniga naftirkeyga aan aada u jeclahay mararka qaarkood ay shaqada igu culus tahay inaan wax ku fududeeyo waa intaasi in lamida hadda delete-ka waa aragteen waxaan kaloo idinka soo iloobay balayga sidee videogan waa keentay meeshan hoosaa keentay sidee loo balay gareeyaa marka aad balay gareynayso waxaa ka balay gareynaysaa laptopkaaga meesha space barka oo saas riigada dheer ayaa jag siinaysaa dhac السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. okay meeshaas waa ka balay gareyn kartaa waxaa kaloo labaad aad ka balay gareyn kartaa meesha shaashada screenka ay ka muuqanayso calaamad waxaa jirto play oo meel walbo calaamadaas aad ku aragtid waa play meeshan hadda qoraalka markaa fiirisid waxaa ku qoran play or space ama play halkan ka dhigi kartaa ama space barka laptopkaaga ama computerkaaga taaban kartaa very easy marka hadda markaa jagsiino السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت راسل داوديال كسر. okay boss markaa dhehaysidna isla meeshii unbaa ku dhufanaysaa marka aad balay gareynaysid balay ka balay gareysay marka aad boss gareynaysid ama stop aad dhehaysid isla meeshii unbaa stop ka leedahay si lamida space barka isticmaalaysay aad balay ka dhahday isla space barka unbaa ka joojinaysaa oo aad fiiri waa kasa macnaha meeshii unbaa ka joojinay meeshii unbaa ka wadaysaa meel muhiima ama qayb muhiima ay ahayd oo aan u baahnaa inaan marka hore idinkaga soo bilaabo laakiin si xoogaa bini aadanan ahayo wax waan isdababarin karaa hadda waxaan soo baranay video sida loo balay gareeyo sida loo jaro maqaska loogu jaro sida muxuu ahaa sheeg wixii aad iska jarto qashinka ahaa loo tirtiro oo banaanka loogu saaro hadda waxaan rabnaa marka inaan keensano codkii codka iyo muuqaalka muxuu ahaa sheeg meesha muuqaalka hadda waa aragteen meesha codka anoo dhiman marka hadda codaan soo qaadanaynaa tusaale ahaan hadda waxaan soo qaadanaynaa codka waa kan codkana soo qaadanaynaa marka codka aad soo qaadanaysid iyo videoga aad soo qaadanaysid waa inay isleeyihiin waxa isku edit gareynaysid hadda tusaale ahaan anigoo kale waxaan isticmaalaa mp3 ama voice recorder laakiin muxuu ahaa sheeg video heesa samayn kartaa video laba video oo yani sheeg laba camera samayn kartaa wax walbo samaynaysid ayaa muxuu ahaa sheeg hadda raba inaan halkan idinku tusiyo codka markaad soo qaadid hadda drag and drop ma sameeyey waxaan sameeyey halkan aan tagay codkaan soo jiiday halkan unbaa kusoo jiiday sababtoo videogii hore idinkugu tusay inaan hadda mar kale ku laabano waqtigan waa beeqaaminaynaa hadda waa soo jiidanaynaa meesha codkaan keensanaynaa marka codkii iyo wixii videogii codkiisu waa noo furan yahay codkii aan keensanan wuu noo furan yahay marka waxaan rabnaa inaan mid kamida dhegaysano mid inaan iska xirno xusuusnaada hadda waxaan rabnaa inaan iska xirno qaybta codka videoga aan dhegaysano videogaan tegaynaa marka meeshan ayaan jag siinay waa meesha loogu talagalay codka in laga xiro videoga waa kan halkan noo yaalaa bal aan dhegaysano codkii hoose uu naga xiran yahay بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت راسل داوديال كسر دواد مركله. برنامجyadii aad uga barateen janaalka xiisaha wararka. okay iyo barnaamijyadii aad uga barateen channelka xiisaha wararka meeshaan ku ekeenayaa waxaa kaloo jirto markaa cod jaraysid iyo muuqaal aad rabtid inaad isla ekaysiisid meel waxaa jiro adiga ku go-naanayso tusaale ahaan bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum kum markaan dhaho waa meeshii joogsiga eed waa laakiin bismi illahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum macnaha inta bismi illahi raxmaan iraxiim aan kusoo jiro waxaa laga yaabaa meel joogsiga inaad ka weysid meesha joogsiga ah waa macnaha meesha aad kad aad ka siinaysid filinka aad ka jiraysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hadda wabarakaatuhudaas hooda way jiidantahay soo maa assalaamu calaykum
kumtaas ka qaadanay sababta waxaa u baahan tahay waxaa waaye meel joogsi ah oo aad sakiinta ama maqaska aad ku dhufatid okay hadda xiisaha wararka aan ku joogsanay okay waxaan sameynaynaa marka hadda videogii meesha noo joogo waa aragnay kadaan soo siisanay waxaan u baahanaa marka haddana inaan imaano meeshii kale oo muxuu ahay sheeg codka maxaan sameynaynaa laba option bay noo banaan tahay inaan meeshan video ka xirno oo qaanada dhan aan iska xirno mugdi aan ka dhigno ko waa kaasa si aan codka u jarjarno ama inaan muxuu ahay sheeg mood iska gelino kan codkan oo kore qaybta moodka iyo micnaha sida loo geliyo iyo baahida keeni karto waa kusoo laabanayna laakiin hadda waxaan rabaa qaybtan inaan idin dhameeyo meesha codka imaanaysaa codkiyaa furanaysaa qaanadii kore videogii codkii dhan waa ka xirnay laakiin videoga wuu noo shidan yahay sababtoo ah ubuucda kamaanan xirin oo right click intaan dhaanaa mood saarnay si aan u dhageysano codka kale ee videoga ma ahane codka audiyaha aan rabno inaan dhageysano muhiimadeena ay tahay okay kaasaan tegaynaa marka hadda بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ولكسن داوديال كسو دواده mar kale iyo barnaamijyadii aad uga barateen channelka xiisaha wararka okay xiisaha wararka meesha asagan ku ekeeyay sakiinta soo qaadanaya meeshan jag siisanaya meeshan aan muxuu ay sheeka jaraya su'aasha isweydiinta mudana waxay tahay hadda videoga marka aad fiirisid halkan ayuu codki noo joogaa muuqaalka meesha aan ka jarnana waa tan sakiinta aan ku jirnay maxaa noo furan marka inaan soo jiidno waa qabanaynaa waa soo jiideynaa falaarta hoosteeda waxaa kaaga muuqanayo in balaas uu jiro oo video cod aawadid ayuu muujinayaa meesha markaad taagan tahay calaamad kale waxaa arkaysaa riiga dheer oo kor ilaa kor aadayso riigadaas waxay muujinaysaa in ay iskula kaa yihiin muuqaalkii iyo codkii iyo wixii oo dhan inay iskula kaasima yihiin ayay ku muujinaysaa meeshaasa kusii deynaysaa haddaba okay waa sii daysay hadda aan dhageysana marka toddobaadka oo maalin walba oo jimcaha daawataan hase ahaatee soo jeedin badan oo la xiriirta asxaabta gaar ahaan filmka xiisaha okay hadda marka videogaaga iyo codkaaga uu iskula kaagaya waa isu kaamid okay sidee kale marka aan ku ogaan kartaa wixii aad samaysay inay sax yihiin oo ay iskula kaag yihiin hadda fiiri marka aan kala jiidno meeshaan fiiri calaamadan fiiri waxaa jira wax la yidhahda cabir oo la saaro videoga iyo codka cabiraa saaraysaa hadda tusaale ahaan ma muuqanayo waxaan rabnaa inaan codkii videoga aan kasoo qaadno moodka kasoo qaadno si aa u aragtaan hadda fiiri kan intuu ku egyahay riigada waa kan way isla egyihiin kan way isla egyihiin qaybtan yar intaan iyo intaan way isla egyihiin markaa saas u cabirtid ayaa waxaa ku cadaanayso in videoga iyo codkii kor iyo hoosba ay isla egyihiin hadda isla baleegareeno okay waxaa meeshaan kaaga muuqanayo speaker ama sameecad inuu meesha ka shidan yahay camal ah micnaha laba cod aa isla yeerayso marka waa sababta loo xiraayo codka kore si codka hoose aa u dhageysatid moodaa saaraysaa marka kii kore oo videogi ahaa sababta uma baahnid cod kale original ah keensatay haddaba su-aasha kale isweydiinta mudana waxay tahay meeshan ma ahan meeshii bilowga ahaa oo waxaan taagannahay xiisaha wararka aan taagannahay waxaa samaynaysaa marka falaartan ujeedaan calaamada markay balaaska ay kugu aadan tahay waxaa waaye ejiid waaye tusaale ahaan hadda marka hadda aad jiidaysid ma soo baxayso laakiin falaartan markay dhexda aad keentid imaanaysaa ejiid waaye mujeedaa waa jiidaysaa horaa geenaysaa horena qaybta aadan rabin ayaa iska jaraysaa tusaale ahaan hadda sorry asxaabay weli waxbaa halkan iga sii jiray meeshas ayaa rabnaa inuu videogeena ka bilaawdo waa meesha bismillahi raxmaan raxiim ay ka bilaabanaysa halkan aan tegaynaa waa jaraynaa halkan aan tegaynaa waa jaraynaa marka maxaa u baahannahay qaybtan hore waxaa jirto aan anagu u baahnayn qaybta hore iska jaraynaa muxuu ahay sheeg inta mugdiga ah haylaad saaraynaa kadib diliidaan leenahay okay waxaan soo baranay videogii iyo codkii iyo sidii laisku dul saaro hadday hees tahay oo kaamirada aa kusoo duubtay heestii oda keensanaysaa waxaa geysanaysaa anoo hee ku jecel oo kale anoo ku jeceltaa ku ekeysanaysaa videogia tegay anoo ku jecel le ku ekeenay hadday kaamirooyinka badan yihiin anoo ku jecel la-adaasa ka qaadanaysaa kad qaanadiya is dul saaraysaa marka film oranka markaad joogtid qaanadaas sida isku dul saaraa oo laisugu keenkeenaa halkan ayaa tegaysaa meesha ma aha videoga ma ahan meesha ubucda iyo muxuu ahay sheeg isha iyo wax dhan ay ku qoran yihiin aad tegaysaa kadib right click aa leedahay right click markaad dhahdid halkan markaad fiirisid optiono badanaa kuu banaan oo ah add video track igu dar
qaanad kale oo video ah waa marka jagaa siinaysaa fiiri halkan waa kasaa waxaa kugu darsantay qaanad kale oo 2 la yiraahdo waa ku sii darsan kartaa qaanad kale oo la yiraahdo 3 qaanad kale oo la yiraahdo 4 waa ku dari kartaa ilaa inta qaanad ee aad rabtid adiga awoodaada iyo baahidaada videoyada aad haysatid iyo logooyinka iyo waxa dhan okay waxaa kale oo iyana jirto hadda isha waa Filmora waxyaabaha kale oo ku fudud yahay waxa kamid ah uma u baahnidba ina iigu soo dar dhahdidba videoga ama wax awadatid aad soo jiidaysaa meeshaan mujeedaan calaamadan qaanadan eberka qaanad ma abuurna magac ma laha meeshaan baa ku sii deynayno jaa hadda qaanad cusub aan noo abuurantay mujeedaa halka qaanada haysanay qaanadan labaad noo imaatay optionkaas isaga uu ku banaan yahay waxa kale oo iyana jirto video tracking fara badan aan ku soo darsatay waa ku soo darsatay iga tiro leeyahay midaada u baahnayna jirto meeshana tagaysaa waxaa leedahay delete selected track iga tir qaanada ii dooran waa marka muxuu ay shaqalkan afiirisid jeega noo saaran muxuu heelada noo saaran markaas oo kale waxaa leedahay delete selected track waa tirna okay waxaa kaloo sii jiro laba qaanadood oo kale mar rabo marka qaanad walba inaa inta dul tago iga tir inaa iraado mar rabo hal mar aan right click leeyahay waxaan leeyahay delete empty track iga tir qaanadaha eberka ah dhacadaasiisa way wada baxayaan fiiri dhag jaa way wada baxeen meesha waxaa kugu haray qaanadii videogu kugu jiray si lamida marka codkan waa kusoo darsan kartaa oo waxaa leedahay meesha inta tagtid waxaad leedahay add wakan add audio track igu dar qaanad kale oo cod ah macnaha maaha video cod ah jagaa siinaysa hadda fiiri qaanada audio qaanad kale ka hoos martay mujeedaan waxaa kaloo iyana samayn kartaa inta audio-ga soo jiidid meesha audio ka hooseyso aad tagi kartaa qaanad cusub isagaa si easy ah kugu sameynaya waxyaabaha uu ku fudud yahay yani ishaq Filmora 9 ay qayb ka tahay control z marka dhahdidna waxa mar walbo wixii hadda aan sameeyay igu soo celi waaye marka control z control plus alt z marka dhahdidna macnaha wixii hore dhan ii soo celi waaye control z oo ku soo celin kartaa mar uu ka diidayo jirto wixii oo dhan hadda qaybta editing ugu horeysay waan soo aragnay inta ugu muhiimsanayd waxaan oo dhiman kala correcting-kii aan oo dhiman muxuu ahay sheeg video editing aad buu fara badan yahay haddaa codsataan video walba inaan intaan bilowno aan ka dhex baxno asaga dhan 1 hour ama saacad baa nagu qaadatay inaan dhameyno haddaa diyaar u tihiin commenting igu reeba adinka soo sheega hadduu ilaahay awood leh uu qadaro muxuu ahay sheeg hadda qaybaha ka dhiman waa badweyn software walba waa badweyn inkastoo uu fudud yahay haddana wax walba u baahneed uu leeyahay kala correcting-kii xageen ka helaya muxuu ahay sheeg wax walba xageen ka helaya hadda waxa idinku dhahay audio-ha marka oo mood-ka la saarayo qaabab loo saaraa jiro ayaa idin dhahay taas idinka iloobay intaana ka bixin hadda tusaale ahaan mood kanaan ka qaadayna dhowr option ku banaan hadda fiiri markaa fiirisid kan waa dim codka ma arkaysid laakiin kan waa blue optionka ku banaan waxay tahay videoga codka inaad kala jirtid markaa rabtid waa baahi jirto oo qof walba editing u baahan yahay gabi ahaanba waxaa rabtaa codka inaad meesha ka saartid ma rabo mudmudna ma rabo no right click aad leedahay waxaa leedahay Dutch audio markaan dhahnay codkii videoga waa kan hoostaan noo yaala meeshaan oo imaaday videoga qaleela kor noo yaalo delete qaybta audio iska dhahayna okay control z ma rabno inaan tirno ma rabnaba no mana rabno inaan muxuu ay sheeg mood saarno ma rabno waxaan rabnaa videoga codkiisa oo xoogaa yar la maqlaayo iyo muxuu ay sheeg codka audio kala akeysato marka video codkiisa hadda inaan tirno mood saarno uma baahnina waxa u baahanahay inaan muxuu ay sheeg xoogaa yar aan yareyna u baahanahay double click ku leedahay mar walba oo video double click aad aad Filmoraha wuxuu ku soo furayaa halkan waa slow motion-kii halkan waa color correcting-kii halkan waa audio-gi halkan waa videoga naftirkiisa wuxuu leeyahay auto enhance-ga casharada ku arki doontaan oo macnaha videoga wax ka bedelkiisi waaye drop shadow-gi lens correction-ki chroma key oo background-ka laga jaraay stabilization-ki composing-ki oo wax badan oo faa'iido ay ku jiraan transition-ki
muxuu ahaa qaybta ODA halkan sidoo kale markaa furtid wax badan fad in iyo fad outkii iyo muxuu ahaa pitchkii iyo equalizerkii iyo muxuu ahaa sheeg denoisekii wixii oo dhan remove background noise-kii color correcting oo kale halkan waa arki doontaan ayada naftirkeeda laakiin hadda halkan maxaa usoo galnay ODA usoo galnay inaan yareyno codka marka allaale markaa yareynaysid meeshana tegaysaa tusaale ahaan meeshan iisoo jiid si aan u arko meesha uu maraayo hadda meesha uu maraayo 6 12 muxuu ay sheeg 10 20 30 waa soo yareynay boqolkiiba 76 macnaha in allaale intaa rabtidaa geysanaysaa mar allaale markaa geysid haddana okay aad leedahay marka asxaabay casharada wixii hadda ka dambeeya haddaad jeceshihiin inaan intaan bilowno aan software walba dhamayno waa diyaar softwareadana runtii aad bay u tiro badan yihiin hadda markaa meeshaan oo kale soo fiirisid Adobe muxuu ay sheeg meeshaan imaw waxaa la yiraahdaa Adobe Master Collection CS6 Adobe Master Collection CS6 kan hadda daan furno kale kaliya meeshaan soo fiiri hoos soo wad meeshaan waxaa ku jiro Adobe After Effects ku jiro Adobe Audition ku jiro Adobe Bridge ku jiro Adobe Bridge oo maxaa Adobe maxaa Dreamviewer ku jiro Adobe Encoder ku jiro Adobe maxaa Extend Script Adobe Extension Manager Adobe Firefox Flash Builder Flash Professional Illustrate maxaa InDesign Media Encoder Photoshop ku jiro maxaa sheeg Preload Premiere kii naftirkiisii Speed Guide kii muxuu ay sheeg waxaasoo dhan horta hal software waa hadda ay duntusay oo waxaa la isku yiraahdaa Adobe Master Collection muxuu kan helitaankiisa waxaa laga yaabaa inuu aad u culus yahay sababtoo ah halka file uu ku jiro folder waa 16 GB 16 GB waaye laakiin se waxaa ku jiro wax walba ku dhex jiro asagaas wuxuu ka mid yahay casharada baran doontaan software walba gooniya u kala qaadi doonaa oo sharxi doonaa softwareada oo dhan muxuu ay sheeg hadba kaan isleenahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa ay ka faa'iideysan karaan ayaan diyaar u ahay waxa casharadu u baahan tihiin asxaabe hoos igu soo qora codsiyadiina soo dhiibta channelkan adinka idinku talagalay cashirkan muxuu ay sheeg qaybta koowaad hadda qaybi aan ku soo baranay qayb labaad ayuu yeelan doonaa casharada kale ee ku xiga softwareada kale ee ku xiga soo codsada inaan rabtaan in la dhameeyo inaan micnaha 10 daqiiqo ka dhigno inaan muxuu ay sheeg dhowr baarti ka dhigno inaan hal mar wada dhameeyno waxaasna waa dooqiina inta ayaan jeclahay inaan qaybtan ku soo gabagabeeyo waa walaalkiin Cabduqaadir Cali Xuseen Cabdulqaadir Koronto idin leh sida ay nabadgeliyo channelkan subscribe hala saaro hala share gareeyo dhiirigelintiina waa muhiim channelada waxbarashada haddaad dhiirigelisaan wax badan ayaad muxuu ay sheeg ka faa'iidi doontaan haddii Allah uu dilo qadaro sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh